dhalinyaradin bas qaar badan oo kamid ah ay ahayday professorka hadalkiisa dadkan in badan oo kamid ah mustawayaasha maalmaha laga hadlayay ma ay joogin mana jirin laakiin sida uu sheegay YouTube-kay ku jirtaa buugaagtay ku qoran tahay wax badan ayaa la heli karaa dadka meeshaan fadhina dad aad iyo aad wax u akhriyo waaye marka in la akhriyo oo dib loo daalacdo aad iyo aad ayay muhiim u tahay midda oo professorka waa run aniga dadka dawladda 90 burburtay yaraan qaba laakiin mar walba hadaa xusuustaan waxaan ku dari jiray 30 sano dawladaan ahayn annaga dhaxdeena waxaan doonaa aan isku qabnay aniga mar walba kelmadaas ay dhaxsanaa jirtay dawladnimadeennuna maalin walba meel ay cilad ku lahayd mar ay cilad la'aan ahayd 100% midii 69 sano xurriyadii ilaa 69kiina ciladaheeday lahayd 22 sano oo maxaan ku iraahdaa in badan oo kamid ciladaheedii professorka ka dhawaaji ciladay lahayd laakiin haddana adduunyadu dawlad Soomaaliyeed oo xagga taagan oo caalam blue xidig 5 geesood ay ku dhex taalo oo safaaradaheeda adduunka meel walba ay ka taagan yihiin oo hawadeeda haddii la soo maray fasax loo soo doonto oo badeeda haddii la soo galay fasax loo soo doonto oo xuduudda in laga soo gudbo haddii la rabo saas yaan ahayn maanta laakiin waa waxaan ka hadlaynay hawadiya furan badiya furan xuduuddii dhulka furan meel walba furan waa waxyaabaha maxaan ku raadaay nuqsaanta jirta lagu qiimeeyo ay kamid yihiin marka waa ku raacsanahay dadkii oon weli nool oo nasiibka u yeeshaan kamid ahay maalintaas uu ka dhawaajinayay muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay taangiyo soo baxeen ay taangiyadii ay isla dhaceen iyo xabadihii magaalada Muqdisho sidaan u joognay yani xaaje qariib ah oo aan la fahmi karin oo dadku aanay fahmi karin ay ahayd taangiyadii militariga ayaa qaarka kale oo muxuu ahaa madfac ku ridaya iyo saraakiishii qaarkood la yaqiinay oo dagaaladii galay oo maxaan ku raad dadka qaarkood Soomaalida ay u arkayeen geesiyaashii inay yihiin qaarkood ayaa dambiilayaal noqday qaar la dilay qaar la qabtay qaar maxaan ku iraahdaa mushkil ka dhacday marka waa run anu la maanta waxaan u bilaabi lahay waxaan dhihi lahay waa burburta dawladnimada maanta burburkeenu soo bilowday maalintii burburkeenu soo bilowday inay ahayd laakiin si kastaba ha ahaatee يعني isla heli waygaas qodobada oo professorku ka dhawaaji mar walba waa jireen hadda ka hor halkaan mar kaga dhawaajiyay dawladeenu dhaxalkii isticmaalkii aan ka dhaxalnay isticmaalkii oo aan ahayn isticmaal nugu diina aan ahayn wax badan oo nugu reebay laana isticmaalka Kenya haystay oo kale isku diinay ahayn kaniisadda waa isla aadayeen iskoolka kaniisadda waa isla dhigeen waa isla aaday annaga laakiin Talyaani Ingiriis nugu diin ma ahayn annaguna masaajidkan aadayna isla kaniisadda aaday marka maadaama uu masaajidkan la aadayn masaajid hala dhiso iyo dugsi quraanka hala qurxiyo iyo maxaan ku raadaa manhajka lagu daro muxuu ahay barashada muxuu ahay diinta iyo hala ilaaliyo maxaan ku raaddaa qiyamka islaamiga iyo maxaan ku raaddaa ma jirin marka taasi waxay sii dhaxashay dawladnimadii aan dhaxalnayna tii meeshii isticmaalkii aan ka dhaxalnay meeshaan ka soconay marka tanaaqudkaas ama muxuu ahay conflictigaas iska hor imaadkaas aan muxuu ahay israacsanayn meesha waa jira maanta marka maxay tahay marka 30 sano hore iyo 30 sano kale hadda naga sii dhamaanayso maalin dhaweed aan ka hadlayay 30 sano ka dambeeyo maxaan ka fikiri doonaa wacyigeena iyo garaadkeenu wuxuu joogaa dadka qaarkiis waa sidoo professorku sheegay muxuu ahay wixii aan iska riixnay oo soo jiidanayn dadka qaarkiis maanta waxay leeyihiin idaacadaha aad ka maqashaan dawlad xoog badan oo gacan adag loo baahan yahay dadka gacan adag ku qabato dawlad xoog badan oo dadka gacan adag ku qabato dadka cimrigooda heloon anigu kamid ah waa soo joognay waxa maanta joognaan ka dhaxalnay dawlad dadka gacan adag ku qabato qaanuun iyo shuruuc aan u baahanahay gacan adag ku qabatay shakhsiyaad gacan adag ku qabto dadku uma baahan marka dadku in ay qawaaniinta iyo nidaamkana waa inay ka dhacarkaan in ay maslaxadooda ka turjumay waxay aaminsan yihiin qaanuun aaminsan inuu yahay waxa ay danaynayaan qaanuunku mid difaacayo waxaas inuu yahay sharafta iyo karaamadooda ayagu dadku siday u arkaan mid difaacayo ilaalinaya qaanuunku inuu yahay laakiin qaanuunka haddii loo arko mid aan diintii waxba ku falayno ilaalinayno ku xadgudbayo oo sharaftii dadku ay lahaayeen ku xadgudbayo dhaqankii iyo qoyskii iyo nolonaashii ku xadgudbayo oo beelihii meel degan ay ku xadgudbayo waxba meel degan oo Soomaaliya oo miyi degan oo xoolo leh oo biyo la'aan ay ka jirto intii garanaysa la yiraahdo waa waxay reerkaas waxay degan meel 3 subaxley ah 3 maalmood biyaha si meel biyo loo taga loo sii soconaya 3 maalmood kalena waa laga soo soconaya usbuuc ka bacdi reerku biyo helayaan reerihii meelaha deganaa markay baraag yar oo biyo roobku markuu ay
ay biyo ugu aruuraan oo muddo kale intii roobka kale ka da'ay ka cabaan markii dawladdu intay tagtay ay ka dudumiso canshuurtii laga aruuriyey muxuu ahaa baabihi iyo taangiga lagu soo gaday markii dawladdu intay yimaadeen ay dardarto iyo jijibiso ay ku dardarto dadka ku disho ay arkayaan war diyaaraddan sawtii lagu soo iibiyey aniga ma aha war baabahan sawkii lacagtii laga qaaday lagu soo dadkii dilayo dadkii shacabkii aan waxba haysan waxba galabsan oo ay gaasanahan hebel waxa uu rabaad rabi weyday ama muxuu ahay nidaamka jiraahay wuxuu rabaad rabi weyday war nidaamka hadduu khaldan yahay waa khaldan yahay waanan dhihi karin waxaasi marka sharciyad darro iyo nidaamka la sheegay marka maanta dhalinyaro waxaas waa wixii shalay waayo aragnimo iyo tacliim wax ku qaadashay inuu leeyihiin laakiin waxaa naga maqan midda hadda uu sheegaya political imagination khiyaali siyaasadeed khiyaali mustaqbali inaan abuurno oo aan ka fikirno maaha keliya inaan hibanno shalay wixii aan haysanay waxbaan ka baranaynaa wixii ku xumaayeen aan baranaynaa wixii fiicnaayay naga baabi'iyeen inaan soo celinaan ka shaqaynaynaa laakiin berriyaan u baahna inaan ka fikirno berri 1960kii ma ahan berri 70kii ma aha 90kii ma aha berri waa berri cusub 2020 2030 2040 2050 iyo ka sii gadaal ayaan u baahannahay aan dhahno waxaan rabnaa saas inaan noqonnaan rabnaa ilaahay idankiis soomaaliya noocaas aan rabnaa soomaaliya ammaankeedu sidaas yahaan rabnaa soomaaliya dawladdeedu ay dadka waxaas u qabataan rabnaa soomaaliya adduunyada sidaa ula macaamishaan rabnaa inaan muxuu ahaay aan waxayno adduunyada inaan erino ku buuqno caayno cadow u aragno malaayiin soomaali ana muxuu ahay inta la soo dhoweeyo meel la dejiyo la nooleeyo oo siyaasaddana kaalay ka soo qaybgala la yidhaha sida hadda la sheegay iskuma kaan qabato cawlamada waxaa la yidhaha ama carre eedeegaynta caalamka maanta waa halkaas tuulo adduunyadu ay tahay wixii dhib nagu ah dhaqankeenna dhibaya diinteenna dhibaya habnololeedkeenna dhibaya dawladdeenna dhibaya inaan iska ilaalino dawladnimadeenna dhibaya inaan iska ilaalino xaqaan u leenahay adduunyaduna sidaas u dhaqanta waa la iska wada ilaaliyaaye qof isku fasaxan ma jirto laakiin haddana wax intaas ka badan oo dunidu ay wadaagto isku xiran haddii maanta dunida ay tiraahdo soomaali miya aha waa ka go'nay telefon uma dirsa noomana soo diri karto una diri mayno internet uma dirayna nooma soo diri karto diyaarad u diri mayna diyaarad nooma soo diri karto ganacsi u diri mayna ganacsina nooma soo diri karto yacni bal adiga marka qiyaas see u noolaanaynaa nolosheenu sidee u ekaanay waxaas badan oo wanaagga ahoo iyo systemka maanta markaad dibadda jirtid ama walaasha ama walaalkaa uu dibadda jiro ku soo wacayo 252 soo telefonka muguu bilaabayo wuxuu ka bilaabaa 252 Soomaaliya iskale meel kale adduunyada lama systemka adduunka ka mid tahay oo nolol ogolaad mugaan internetka wax degsanayno waxaas .so yaan gadaal uga soo dabamarinayna annaga iskale nalaamale laakiin adduunyada noo aqoonsan adduunyada aqbashay inaan kaas leenahay adduunyada aqbashay marka adduunyadu waxay leedahay badan annaguna oo waxaas wax la midka inaan aqbalno waay mar kale aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo professorka dhalinyaro waxaan rabaa mar kale kelmadda aan dhihi jiray inaan ku celiyo madax madooba maan ku haray war waa adinka kuwa la idinka rabo inay fekeraan oo ay berri ka fekeraan madax madooba maan ku haray macnaheedu wuxuu yahay caqligii iyo awooddii fikirka iyo maskaxdii freshka ahayd adinka idinku dambaysaa dadkeennii inta badan u soo joogay madaafiic laysla dhacayo iyo dad kala qaxayo iyo adduunyo gubanaysa iyo wixii aba weli nagu qoofilan marka waxaan rabnaa in la fikiro maxaa laga fikirayaa berri wixii aan soo dhaafnay shalay maxaan ka baranaynaa casharadan 1 2 3 la yiraahdan ka baranayna inaan qabiil u kala burburno oon qabiil isu nacno oon qabiilka waxa walba tuulka dawladda lagu furfurayo qabiilka ka dhigno oo aan maanta maxaan u baahannahay wax cusubaan u baahannahay wax cusubaan u baahannahay waa maxay maanta waxaan u baahannahay inaan abuurnaan u baahannahay beel siyaasadeed wax la yiraahdo dad isku beel ah oo siyaasaddu ay isku keentay isku beel ka dhigtay ma aha tii reer qurac iyo tii reer qansax markaan dawladnimo ka hadlayno isku beel inaan noqonno maxaa isku beel u noqonaynaa Soomaaliya noocahon isla garanay oon ka wada hadalnay oon tilmaanayaan u baahannahay maxaan isku beel siyaasadeed ka noqonaynaa waddada Soomaalidaas qurxan lagu gaarayaan intaan isla sawirno isla qaabayno isla tilmaanno meesha ay marto oon maab khariidad u samayno ayaan leenahay waddadaasaan maraynaa waxaanayna geynaysaa Soomaaliyadaas cusub oo aan muxuu ahay sawirannay oo annaga
waana gaaraynaa waana xaqiijin karnaa ummadaha horumaroo dhan waddada ay ku horumareen waa waddadaas aan uga daysanayno ku daysamayno wixii shalay annagu aan subinnay ee aan ku jabnay maalin walba inaan joogno macno ma laha qabiilku meeluu lahay meeshiisii aan ka keennay meeshiisii inuu jiro weli oo ku noolaado waa reer qurac iyo reer qansax meelahood inay joogaan waxa ay dawladda ka rabaanna ay helaan si ayaguna dawladdu waxa ay ka rabta ay u hesho hadda sidii loo sharaxayay laakiin waxaan beeshaas siyaasadeed ee la samaynaya iyo soomaalida nooc waxaa laga yaabaa beel kale xagga inay ka samaysanta iyadana soomaaliya oo kaloo qurxoon oo nooc kale ah laakiin midda annaga aan rabnay cagaaran aan ahayn mid bulu aan rabtayna laga yaabo maxaa yaa waa qaadiga kala xukumaya ee midaan cagaarana qurxoone midaan buluuga ma qurxoona dhahaya dadka Soomaaliyeed waay inaan ka gadno dhahno Soomaalida aan rabnaa waa saanay u fiican tahay saanay u quruxdahay karaamadaana ay leedahay sharaftaana ay leedahay waa kana dadku markay nala aqbalaana beesheenu ay noqonay beel xoog leh haddii kale beel jirto iska daciif ay ahaane marka xoogga iyo caqliga iyo xoolaha aan isu geyno beel siyaasadeed oo Soomaaliya dhan ka dhaxayso oo Soomaaliya gudaheeda dhanna ka hana qaada inaan abuurna hadii aad iyo aad u mahadsantihiin